السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa gobolka Canfarta ee dalkaasi Itoobiya. Isbuucyadii la soo dhaafay waxa ka socday dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidamada Canfarta iyo maleeshiyaadkooda oo isgarabsanaya iyo sidoo kale TPLF ciidankooda oo weerar xooggan ku soo qaaday gobolka waqooyiga Canfarta ku yaala. maamulka Canfarta ayaa horay u sheegay sidaan idin la wadaagnay in gabi ahaanba gobolka waqooyiga Canfarta ku yaala ay kooxda TPLF la wareegeen isla markaana loo baahan yahay in Canfarta la soo gaaro gurmad iyo waliba in laga difaaco oo dagaal lala galo kooxda TPLF ay weerar gobolkaasi ku soo qaaday. wararkii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan in TPLF ay sameysay maleeshiyaad Canfar ah kuwaasi oo ay ka hor keentay maamulka iyo ciidamada Canfarta oo ay TPLF doonayso in ay la dagaalamaan maamulka Canfarta iyo waliba ciidamada Canfarta maleeshiyaadkooda iyo ciidanka dawladda oo iswata. xogihii ugu dambeeyay ayaynu eegaynaa iyo waliba maleeshiyaadka Canfarta ee TPLF ay sameysay oo dabaaldegyo sameynaya kuwaasi oo ka soo horjeeda maamulka Canfarta. sidoo kale waxaan eegi doonaa war-saxaafadeed TPLF ka soo baxay oo ay uga hadleen sababta ku qasabtay in dagaalkan culus ay ku qaadaan gobolka Canfarta. waxaa dhinaca iga fadhiya guuleed oo soo indheeyay xogihii ugu dambeeyay iyo macluumaadka la xiriira gobolka Canfarta dagaalada ka socda. soo dhaw guuleedow aad baa mahadsantahay kacsi dawadayaasheenna oo salaamaya meel walba caalamka joogaan. waxaag gobolka Canfarta oo muddooyinka u dambeeyay aad moodidba in uu ama maartay uu sal u noqday colaadii waqooyiga Itoobiya oo hadda aad moodid halkaas inay aad ugu soo urursantay. halkeebay colaadii iyo dagaaladii gobolka waqooyiga Canfarta ka socotay ama ka socda ay marayaan? marka hore haddaynu dulmar guud ku sameeyno bal dagaaladaasi wali horta sidoodii bay u socdaan. wararkeennii shalay ugu dambeeyayna waa inagii shacabka dadkeena daawada aynu kula wadaagaynay meelaha la kala marayo iyo deegaamada la kala qabsaday iyo qaylo dhaantii ka timid maamulka deegaanka Canfarta oo lahaa waqooyigii gobolkaasi oo idil wuxuu qarka u saareeyahay ama intiisii badnaydba waana lagala wareego waana laga qaatay oo kooxda TPLF la wareegtay. marka dagaaladaasu aad bay u culus yihiin. maleeshiyaadka Canfarta iyo ciidankii gaarka ahaa ee Canfarta iyo ciidamadii kale ee kaabayeybana waxaa moodaa inay tabar dareeyeen oo furimaha hore ee dagaalka ay meelo badan ka soo baxayaan lagalana wareegayo oo loogaga xoog badan yahay. marka dagaaladii wali sidoodii bay u socdaan. hadda waxaa soo baxaya xogo faahfaahsan oo ku saabsan sababaha Tigreega ama TPLF-ta ku khasabtay in deegaankii Amxaarada oo aynu ogeyn colaadii u dhaxaysay aan xaggiisaba loo dhaqaaqin targetka iyo xoogaba la saaray meeshan deegaankan Canfarta. deegaankan Canfartu ma aha horta deegaan istiraatiiji ah, ma laha khayraad badan, ma laha dhul istiraatiiji ah oo lagu jahadayn karo oo maxaan ku idhaahdaa haddiiba xaalku uu xumaado la isdhihi lahaa TPLF waxay qorshaysanaysaa inay xaggan usoo dhuumaalaysi tagto oo mararka qaarkood isku soo fidiso maadaama deegaankeedu uu kooban yahay. ma aha dhul ay warshado waaweyn ku yaalaan. arrinta kaliya oo muhiimka ku yahay waxa weeye inay marto wadadan xiriirisa Djibouti iyo Itoobiya ee halbowlaha ah taasoo iyada TPLF-ta hadda laftirkeedu ay awoodda saarayso. marka deegaankan sidaasi ah ee Canfarta TPLF-tu waxay leedahay waxaan ugu khasbay inaanu gallo gardarro iyo weerarro joogto ahaa oo nagaga imanaya dhanka Canfarta iyo ciidamo Eritrean oo kaabayay oo mar ay u soo jirsadeen magaalada caasimadda ee Maqale 30 kilomitir. marka waa Canfarta iyo Eritrean oo iskaashanay ciidamada Eritrea oo wali waxa yiraahdeen jireeskina laga bixiyay kana fara Canfarta loo xiray ma show waa babumayaal baa loo xiray. jireeska Canfarta kama badna intaasi yaa Allah oo dawladdu ku keentay ciidamo kale oo duulaan wax loo xiro lama haye. marka si guud waxay yiraahdeen ciidamada Eritrea oo dhibaatada inta ugu badanba meesha ka wada iyo ciidankan maleeshiyaadka Canfarta oo qayb la muujinayo sawirkooda si loo yiraahdo ciidamada Canfarta kaliya meesha maraya lagu kaabay waxay mar u soo jirsadeen magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega 30 kilomitir. waana sababtaan u harsan weynay ee nagu khasabtay dagaalkan inaan gallo. 6 toddobaad baan dul qaadanaynay
oo intaa weeraro hujuun ah iyo dhuumaalaysi iyo maxaanku idhahdaa kuwa maca tiknikadooda wato oo dhanka caasimadda loo soo ruqaansanayna lagu waday arrintani waxay dhacday bay yidhaahdeen kadib markii annagoo tixgelinayna baaqi qaramada midoobay iyo wadahadalladiina fursad siinayna aan ka soo baxnay deegaamada canfarta iyo amxaaradaba markii aan xuduudanada nimid hawshaasaa nagu bilaabatay waan dul qaadan weynay ugu dambayntiina tallaabadan hadda aanu wadno yaanu qaadnay bay leeyihiin tigreeb xaggee marka u socdaan ujeedkoodu waxaa weeye in la karkaar weydaariyo oo xukunka laga tuuro awal arba madaxweynaha gobolka canfarta maxaa ka dhexeeya marka awal arba iyo iyaga ma dagaal iyo khilaaf gooniha ka dhexeeya jiray mise maadaama maamulkii uu hogaaminayay ciidankiisu uu weerar ku soo qaaday saas bay iyagu hadda waxa weeye ay dagaalkan u qaadayaan horta waxay leeyihiin haddii aanu shacabka tigreegana shacabka aan walaalaha nahay aan dariska nahay ee canfarta wax dhibaato iyo wax colaada oo naga dhaxaysa ma jirto waxaan xasuustaa markii gobolka amxaarada ay weerarayeen weligood walaalahan nahay lagama maqal aad iyo aad waxay ku dhadhansiinaysaa yacni colaadoodu meeshay gaarsiisanta laakiin kuwan arrimo hoosaa jirta markaad fiiriso wararkan shalay aan soo tabinayna iyo deegaanada ay qabsadeen iyo meelaha lagu soo dhaweynaya dibadbaxyada lagu qabtay iyo hadda oo ay jabhad ay ciidankoodii tababarayaan oo calankii deegaanka canfarta wadata oo dirays ay iyagu usoo taleen wadata oo maxaanku idhahdaa jabhadaasi lagu magacaabo anfar liberation army lagu magacaabo oo ay kasoo dhex muuqdeen markaa fiiriso iyo muuqaaladii shalay aad isu gegeyso waxaa kuu soo baxaya xidhiirkay sheegayaan ee shacbiyanka ah inuu jiro laakiin dhibaatadu ay tahay ninkan awal arba ee maamulka deegaanka canfarta ka arrimiya ee aad sababo ku xidhan abiy axmedna ay saaxiibka aadka ay yihiin ciidamada eritreyaanka ee meesha la sheegayo in mushkiladu ay tahay marka ujeedkooda hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan meesha ka saaro shacabka tigreega iyo dowladda tigreega oo isku duubanna arrintan ay uga faa'iidaystaan inay ugu baaqaan shacabka walaalahooda canfarto inay meesha ka saaraan awal arba iyo maxaanku idhahdaa maamulkiisa jabhadan marka hadda ay sameeyeen jabhadan jabhad hore u jirtayba mise waa mid hadda TPLF ay sameysay oo ay uga faa'iideysanayso colaadda hadda waqooyiga gobolka canfarta ka socota muxuu yahay ujeedka rasmiga ee jabhadan ay canfarta ay u sameysay tigreegu deegaanadan ay hadda qabsadeen ee waqooyiga gobolka canfarta ahaa magaalooyin badan oo ay qabsadeen aad baa looga soo dhaweeyay waxay ka heleen dhalinyaro boqolaal ah oo ay u isticmaalaan inay maamulkii ka hor keenaan oo taageersan marka maleeshiyaadkan tababarka degdega ah loo xidhay ee jabhadan ujeedka laga leeyahay waxa weeye inay kaga takhalusaan awal arba iyo xukuumaddiisa samaaro ka arrimis ee deegaanka canfarta marka hore waxaa la islahaa dagaalkan soo labakacleeyay ee deegaanka canfarta ka soo labakacleeyay talow ma wadadan kaliya intay xoogga saaraan bay rabaan in aad sababa halkaa ka galaan mise hawlo kala qarsoon baa jirta ilaa hadda dee ma xaqiiqsan karo inay weli hawlo kala qarsoon oo ay iyaga u gooni ah jiraan waa suuragal oo ay qarinayaan laakiin hadda waxay yidhaahdeen waxaan u soconnay waxa weeye inaanu maamulkan faasiistaha awal arba aan meesha ka saar oo aanu ka banayno meesha marka wixii ka dambeeyana dee hadday deegaanka canfarta qabsadeen meesha kale u jahaysanayaan allahu yaclam ujeedkooduse hadda ay dagaalkan u galeen shacabkan faraha badan ee canfarta ay soo bandhigayaan xitaa muuqaal ay soo bandhigeen jabhadda oo aan jeclaan lahaa bal inaad daawadayaasheena ugu duudo muuqaalkan ciidankan deegaanka canfarta ee jabhaddan canfar liberation army oo laba sargaal oo TPLF ay ku dhex jirto oo cimaamad bahashii macamustiyeeda qoorta ku maran oo maxaan ku idhaahdaa tababara u samaynaysa bal horta inay indhahooda dadka ku arkaan oo ay nala arkaan wagaag daawasho wacan daawadayaal muuqaalkaasi jabhadan canfartaha ee tigreega uu sameeyey waatahay guladow ma muuqataa tigreegu inay leeyihiin ujeed ah inay iska hor keenaan maamulka canfarta iyo shacabkiisa oo ay doonayaan in maamulka meesha laga saaro aad u weyn markaad fiiriso hadda ficiladoodan ugu dambeeyay ay ku dhaqaaqayaan dibadbaxyadan ay samaynayaan ee magaalooyinka lagaga soo dhaweynayo ama ha khasbaan dadka ama taageeraba ha ka ahaato jabhadahan ay hubaynayaan ee ay abuurayaan waxaasoo dhan marka ay isu gegeyso ujeedkooda ugu weyn nimankii dharbaaxada ugu xun ku dhuftay xilliga ay adisababa kusii socdeen inay ka aargutaan oo marka hore kala daadiyaan marka dambena hadday u suurowda ay dusha ka qabsadaan waana deegaan ay daris yihiin oo dee ay xuduud leeyihiin oo ay meelo ay u soo baxsan karaan haddii ay xaaladuba ku xumaato maqale marka
inuu qorshe kale miiska u saaran yahay oo kolba deegaan ay ku duulaan iyadana waa suuragal haddii aysan dowladdu iyada laftirkeedu iska garanin oo markaa wixii xoog iyo tabar hadda ay haysa intay ku duusho maqale aysan meesha dee isha ay kasoo burqanayso fikradahan iyo maxaan ku idhahdaa xoogga TPLF-tu aan la soo burburinin waxay noqon doontaa hadday u sahlanaato inay canfarta qabsato oo awal arba ay meesha ka saarto waqooyigiina hadda ay soo wada qabsadeenba inay kolba deegaan ayar ku duulaan oo caasimadii iyo meesha ay u socdeen aysan aadinba marka waa istiraatiijiyad cusub oo ay ku naafaynayaan kow deegaankan canfarta ay dariska yihiin dowladda ka arrimisa oo ay dagaal adag wada galeen ay doonayaan inay meesha kaga saaraan hadday u hirgashana wax kale inay kusii darsadaan waa suuragal maamulkan canfarta iyo Eritrea waxaa jira xiriir ka dhaxeeya oo iskaashi militari ah oo ka dhanha TPLF horta waxaa ku sugan deegaanka canfarta boqolaal ciidamada Eritrea oo direyska laga siibay waxa inta badan dagaalamaya canfarta hor ordayana waa iyaga ciidankii militariga Ethiopia meel uu ka baxay anuu ma ogi laakiin waxa hadda meesha joogay dawladba ka ah dagaalka hagaya naqshadaynaya waa generaalada ciidamada Eritrea oo direyskii laga bixiyay dad shacabana loo ekeysiyay iyo dadka canfarta loo ekeysiyay qaarkood timihiina la bixin baa la sheegay laakiin si guud nimankan Eritreaanku waa wali ma aysan ka dhamaanin deegaankan canfarta iyo kan amxaaradaba sidoo kale gobolkan Tigreega qaybo badan oo kamid ah ay kaga jiraan hawlgalkan inay ku jiraan oo sii wadaan way ku khasbeen sababtu waxay tahay haddii laga soo dhamaado gudaha Ethiopia oo TPLF ay soo xaaqdo waxa labeeye ee lagu socdaay ee la wajihi doono waa iyaga marka ma sii sugayaan inta ay hawsha sii wadi karaan ay sii naafeen karaan qoladan Tigreega way sii naafeenayaan hawlgalkan waxa khasbaya in TPLF sida sheegaysa iyadu ay soo gasho waxa weeye ciidamada Eritrea ee gardarrada ku wada ee deegaanka jooga waxayna leeyihiin waxaan kala fogeyn rabnaa oo ujeedkana ugu weyn buu yahay inaan burburino xiriirkan laba geesoodka ee u dhaxeeya canfarta maamulkeeda iyo ciidamada Eritrea ee gardarrada u jooga mar walba soo hajumay وهاجاج واتهي وحن آذينا مركا والصحافاتكي أنت نسوا جبينين حيكون شيء إنه حاول إنه ممكن قريبا كان من حاجة جرجارك بني آدمنا مركلا ركوا الله ده حنا المددر إنه تكريو كعبانين إن العنقبتي جرجارك بني آدم اللي جالسين لها قول كتكريجا وشعب كيسو اللي أطبقنا اللي دار داعي سيد الشيءين هذا فرين بيقدرين وحوي باش عالم فرينتن محيكو سلاس أنت ويكونهن فرينتا waxay leeyihiin waa si degdeg ah loo furo gargaarka bini'aadanimada gobolka Tigreeg meelo badan oo aynu gobolkaasi Tigreegana oo ay wax ka soo gali jireen wadooyin muhiim ahaana gabi ahaanba way xidhan yihiin oo ama dagaal ha gooyaan ama si kale oo ka sahal loo gooyo waxaanu kala ognahay in baabuurtii gargaarka geynaysa ee toos u tagaysay ay waa horeba joojisay qaramada midoobay marka waxay ku baaqeen in la furo sida ugu dhaqsiyaha badan gargaarkaasi bini'aadanimada waxa kale oo qorshahan deegaanka canfarta ay ugu duuleen garab socdaba wadadan ay Ethiopia oo dhan wax uga imanayeen haday la wareegaan cid ay wax ka bariyayaan malaha Djibouti marka haday marka way soo leexsan wixii Djibouti ka imanay xaqooda baa lagu leexay deegaanka aad buu baahaysan yahay marka way ka raysan doonaan gargaar bini'aadanimo ay raadiyaan mardanba qaramada midoobeyna Djibouti kama hor istaagi karto inay gargaarka soo mariso wadadana iyaga maamulaya si fiican marka hadda wadadan shalay ay ka qeyliyay canfarta oo wali dagaalada ay ka socdaan oo lagu kala bixin halbowlaha dhaqaalaha Ethiopia ee dekedan Djibouti waxa ka soo dago oo dhan oo soo maro haddii ay la wareegaan maamulkeeda cid ay wax weydiinayaan oo dambe ma jirto وهاجاك أدو ما سنيه هي جل الدعوة أنت سينو كسو أفمرنا أمام كسو جبنا قلب كان تاني كلن دم بوحنا كلها في الأساسيو نبت قليو